magacaygu waa xasan xaaji cali waxaan ka mid ahaa dadkii mitilay filmaantii TV-yada ka daawateen oo ka hadlayay dastuurka filmaas waxaa ka mid ahaa filimka dastuurka oo inoo sharxayay dad haday meel isku wada yimaadaan inay u baahan yihiin xeer kala haga diinta iyo dalka filimkaas oo inoo sharxayay in dastuurkeena uu ku saleysan yahay diinteena islaamka laanta fulinta oo sharxaysay maamulka dawladda baarlamaanka oo inoo sharxayay xilka xildhibaanka iyo nidaamka loo maro sharci dejinta garsoorka oo inoo sharxayay in sharciga loo siman yahay dhulka iyo hantida filimkaas oo inoo sharxayay hantida la isku haysto in loo maro sharciga ama xeer dhaqameedka awood kobcinta dumarka iyo doorka ay ku leeyihiin bulshada xisbi siyaasadeedka iyo qaabka loo asaaso amniga iyo dib u heshiisiinta kaasoo inoo sharxayay doorka bulshada ay ka ciyaari karto amniga iyo wada shaqaynta dawladda iyo shacabka filimka hadda aad daawan doontaan wuxuu ku saabsan yahay federaalka waxaana ka hadlaya rag fadhiya maqaaxi oo fadhi ku dir ah oo nin walba uu ka hadlayo fikraddiisa يوميا كان داو مني ويسي عيار هيك صوت عاش عبد الله الهبوله عاش ما نوت عاش waa noo yar وديلي ماشي هلا كوكو ديار بعد هذا ما في ربي كل هذا ويا بنات شهوه معي يركير ما دادل ما يير ما حاجه سقاشن كيلومتر marka xagga bara wala aado يا قرصك بورمي يا كلا برا براندري يبحوها بورمي كوياي واي ورمي waa garas oo ku yabro waqtiisa waxa la nima dhul marin dhaaya male waa garanay adinka dhalinyaraatay anagu beledii baadiyo anaga wax ku soo dhaqanay waa garanay hadda koor waxa dhacay nin baa meel ka cabi jiray xawayaan geeluhu lahaa maalintii dambe geeli barku oo naqi dhamaaday geelu soo arursaday wuxuu yimid ceelkii nin baa koor yimid oo wuxuu yidhi meesha anaa iska loo xirmaystay geelaaga la tag bax war geelaaga la tag war xagee aadaa meeshaa doonta cirka aad ilaahay amarkii nabsi waa soo degdegaaya markii dambe kii oo ninka u diiday ceelka inuu geela ka waraabsado yaa dani qabatay baadii ugu tegey waxay buu yidhi wuxuu yidhi saan wax kuu siin lahaa adaan yeelin soo ma adaan hee yeelin shalay markii geelaygii anigu baan homana mar haddaad cayriso dhulkii xiratay maanta aniga waxba hayo soo doonan nin walbaa tiisaa ku fadhiyo haddii hadda cirifka u sheeya raas kambooni ilaa raas casayr ilaa low caddo soomaalida degtaa hal meel baa laga wada xukumi jiray wax dhibihuna ma dhex mari jirin federaalka dadkaan fahansanayn qof walbaba wuxuu goosanayaa meeshiisii wuxuu iska dhigayaa inuuba dawlad gaara yahay macnuhu ma aha dawlad gaara waa inuu gobol gaara yahay oo uu ka mid yahay dawladda federaalka ee Soomaaliya waa gobol ka mid ah macnuhu waa in sidaa loo fahmo laakiin waxaan la fahminba macnihii federaalkii baa ma la fahansanayn arintaas aan arkaa مثلا afgooyaan ما askari waa abahay ahaa wuxuuna ka yimi midugii halka warka waa la cadeeyaa moogta waa sax weey afgooyaan ku dhashay naato kuna shuuta afgooya ku taala ayaa kugu qoran kaarta meeshadaada tesare kano shaminta ha very good yaa igu taala waa garan see la igu dhihi karaa meeshaad ku dhalatay kama soo geli laaci amal baad ka too waxaad aadaysaa gaalkacyo waa tagaysaa federaalka qabo kulay ninkan waa tagaysaa federaalka qabo maydaan fahmin macnaha haddii ninkan hadda abiisu ku dhashay gaalkacyo buu kusoo jeedaa macnaha waxaa la rabaa xaqa qofka in la siiyo federaalku saas ku jira sababtoo ah nin baa afgooy u dhashay isaga afgooy uma dhalmo mogta uu ku dhashay ma fahanti marka kii marka u dhashay waa dadkaas ka marka ma noqon karo waa inuu waddankiisu tagaa kan xaqiisu ilaahay maya u kaadi meeshaan u dhashay maba isfahmi karo kuma dhaqmo maya arto dadkan waxba isfahansaneen ka guuro gobolkaad ku dhalatay gobolkaas kala deg ma dhihin ninkan lama dhihin gurigaagi waad leedahay cid ka
كحقرة سماح واد جناني عداد ولد صاحبها وحيد بس ولد جناني لكن كمان نقونيسيد معنا واحد مضحك هذا أنا هرو مركز سمين كذا أبانتاج أنا كنا نقول وسير أما كنا نقول كنا نقول صدق كاجد هذه كوانا يخاني وهو كواسنا بلوني جالس العيارس انت حدون تيد ما شيء تعالى dadku inay amni iyo nabad ku kala noolaadaan inay nabad ku wada noolaadaan federaalku tudoonayo waa taa federaalka idinkii baan fahansanay ambarana koores ukaadi ambarana federaalka sidaad ku aragtaan filimka gaaban waxaa cad in dadka intiisa badan aanay u kala cadeen nidaamka federaalka ah waxa uu yahay sida uu ku soo jeediyay shakhsi ka mid ah dadkii doodayay oo yiri balaanu barano nidaamka federaalku waxa uu yahay haddaba su'aashu waxay tahay waa maxay federaalka federaalku waa nidaam maamul siyaasi ah kaasoo suurtagelin kara in qarannimada loo wada dhan yahay iskuna xiri kara iskuna soo dhoweyn kara nidaamka dawladda iyo shacabka iyo baahinta maamulka ee dawladda waxaa horey u qaatay nidaamka federaalka ah wadamo badan oo 25 ah oo ay ka mid yihiin wadamada aynu naqaan ee Ruushka, Mareykanka, Imaaraadka, Koonfurta Afrika, Itoobiya iyo Jarmalka. wadamada qaarkood iyagoo asaasiyan federaal ah ayaa haddana ka fogaaday isticmaalka ereyga federaal sababo kala duwan awgood. wadamadaas waxaa ka mid ah dalalka South Africa iyo Spain, halka dhowr wadan oo kalena ay hadda u guurayaan nidaamka federaalka kuwaas oo ay ka mid yihiin dalalka Ciraaq iyo Suudaan. Soomaaliya marka aanu u soo noqono waxaa qodobka 49 ee dastuurka uu farayaa in laba gobol iyo wixii ka badan ay noqon karaan dawlad goboleed ama state. hase yeeshee faahfaahin iyo falanqayn qoto dheer oo ku salaysan heshiis iyo is-aaminaad tixgelin ayaa loo baahan yahay si la isula meel dhigo arrimo badan oo ay ka mid yihiin xuquuqda muwaadinka, dhismaha qaybaha kala duwan ee nidaamka federaalka, xiriirka ka dhexeeya dawlad goboleedka iyo dawladda federaalka, habqaybsiga khayraadka dalka, awoodda loo igmanayo gobolada iyo wixii la mid ah. su'aashan iyo su'aalo kale oo fara badan ayaa noqon doona kuwa u baahan inay Soomaalidu daristo ka doodo iskana kaashato sidii xal loogu heli lahaa. astaamaha lagu garto nidaamka federaalka ah waxa uu sheegayaa waa inuu leeyahay isxukun iyo xukun wadaag labadaba, taasoo macnaheedu yahay inay dadku isxukumi karaan iyagoo dooranaya madaxdooda, dawladda hoose, kuwa degmooyinka, kuwa gobolada iyo kuwa maamul goboleedkaba. tani waxay suurtagelinaysaa inay dadku ogolaadaan canshuurta deegaankooda laga qaadayo isla markaana ay go'aan ka gaaraan sidii canshuurtaas loo qaadi lahaa. tusaale ahaan inay dadka maamulka deegaanka faraan in muhiimadda kharashka lagu xoojinayo amniga ama waxbarashada ama caafimaadka ama biyaha ama jidadka iyo wixii la mid ah ee deegaankaas. sidoo kale waa inuu federaalku leeyahay astaanta xukun wadaagga ah oo macnaheedu yahay in deegaan walba ama maamul goboleed walba uusan iskiis uga madax bannaanayn ee qarannimada ama wadanka uu leeyahay dawladda dhexe oo federaal taasoo wadanka ugu xilsaaran arrimaha difaaca dalka, siyaasadda arrimaha dibadda, samaynta lacagta, maamulka laanta socdaalka iyo mas'uuliyiin fara badan oo kale. si dawlad federaal noocaas ah loo helana waa in shacabka wadanka oo dhani gobol walba oo uu joogo ka qayb qaato canshuurta oo uu ku bixiyaa sidii dawladda dhexe ee federaalka ay u gudan lahayd waajibaadkeeda qaran. dastuurku ma wada qeexayo qaabka nidaamka federaalka loo hirgelin lahaa dalka Soomaaliya. muwaadin ahaan waxaad xaq u leedahay in ra'yigaaga aad ka dhiibato kana qayb qaadato doodaha ku saabsan nidaamka federaalka iyo sida uu u shaqayn lahaa inta aanan dastuurka loo qaadin afti dadweyne ee lagu gaarayo dastuurka rasmiga ah ee dalka Soomaaliya. amaan huban bay rabtaa hanaan federaal iyo dastuur hirgalay rabtaa.